بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ama yeelo cidii dhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah oo fiye inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteen Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. waxaan ka hadlayaa maanta laba qodob. qodobka koowaad waa doorashooyinkii Somaliland kelmadaan ka oranaya. qodobka labaad dad fiidiyoyo aan leeyahay oo waa hore soo gelgeliyeyna kelmad baan ka oranaya. waa marka koowaad waxaan bogaadinayaa, hambaliyeynayaa, aad iyo aadna aan maaragtay u ammaanayaa dadka shacabka ah in awoodda loo soo celiyo, in ay iyagu codkooda ay ku doortaan qofka ay rabaan, codkoodana ay ku diidaan qofkaysan rabin, in hogaamiyuhu ogolaado in lagu abaalmariyo waxqabadkiisa, in lagu abaalmariyo waxyeeladiisa. arrintaasi waa sharaf, waa bogaadin dhammaystiran, waa arrin ku dayasho mudan, waa arrin loo baahan yahay maamulada kale ee Soomaaliya oo dhan inay qaataan, oo ay iyaga maadaama ay khubaro yihiin ay iyaga ka haystaan, oo iyagu ay noqdaan dadka tababaraya qabanaya doorashooyinka. Muuse waxay u egtahay inuu ku daayay 7 beri bay haystaan guddigu, 7 beri weli ma dhowa. Muuse 7 beri bay Muuse iyo tiimkiisu haystaan, ama qoladii kaleba inay dacwoodaan oo ay cabasho keenaan. already cabashuu keenay Muuse 300 oo sanduuq oo Hargeysa Maroodijeexa la ii furuu yiri, wuxuu filayay inuu margin weyn helayo. marka saakaa la bilaabay doorashadii tirinteedii wayna socotaa. natiijooyinka hordhaca ah waxaa soo baxaya Ciro waa madaxweyne, waxaa soo baxaya Muuse waa qofka ku xiga. Faysal labada aragba meeluu maray waa la xabaalay, qayladiisii iyo buuqiisii baa laga raysanaya. ururkiisiina xisbigiisiina urur buu dib ugu laabtay oo wuxuu ka baxay saaxada. xisbiye waxaa soo baxaya 3 waa Wadani iyo Kaah iyo Horseed iyo Kulmiye oo isku haysta, oo ay dhici karto in Kulmiye soo baxo oo markaa Muuse xisbigiisii u badbaado. tani waxay daliil u tahay Muuse kadib markuu boobay hantidii dadka ka dhaxaysay, dowladdiina uu ka dhigay shirkad qoys leeyahay. keligii maaha, xasan baa la mida, Dani baa la mida, Axmed Madow baa la mida, kulligoodna Ismaaciil Cumar Geeley ka barteen oo kaba daranba. markuu intaas sameeyey, markii uu nabadii faraha ka saaray oo qabaa'il uu beegsaday oo dowladnimadii u isticmaalay awood uu isagu ku ciilbeelo, oo qofku uu xanaaqsan oo ciil qabo oo xabad saaro oo shacabka uu xasuuqo oo dambiye dagaal uu ka galo beelo dhan oo meelo degan oo intaas oo kunoo qof ay isku dhimato. intaa markuu sameeyey, dadkii waxay garteen nadhaaf awoodda marka inay yeeshaan shacabku, oo qofka ay ku abaalmariyaan wax qabadkiisa. waa waxa Soomaaliya ay kaga bixi karto dhibka ay ku jirto. Soomaaliya way burburtay, waddan qiimo leh ahayd, dowladnimo fiican bay haysatay, iyadii baa iska hortimi, way islaysay, way isxasuuqday, baaba iyo wax aan jirin bay iska dhigtay, sumcadoodii baa luntay, ciisadoodii iyo karaamadoodii baa lumay. yacni siyaasi reer walba waxaa hortaagan ayax ah aan waxba deeqin, wax deeqa aysan jirin, wax alla wixii dhulka dul saaran qaadanaya, aakhire iyo adduun midna aan dan ka lahayn, ceebna aan ka baqayn, cadaabna aan ka baqayn. ma ujeedaa? xil iyo xoolaba saa u qaadanaya, isku darsanaya. Soomaali waxaa wargal u noqday intii ugu liidatay. marka in la helo, in shacabku ay awood helaan, oo Muuse sidaas awooddaas iyo baawarkaas lahaa ay maanta ku yidhaahdaan nadhaaf, يعني waa wax loo baahan yahay ummaduna ay kaga bixi karto. waxaan kan badan ka oranaya xasan sheekh oo shalay
bogaadinayay dowlada maamul goboleedyo labada maamul goboleed oo anigu reer ahaan ama qoys ahaan ka soo jeedo bogaadinayay inay dowladda lug jiidaan maanta iyagii baa lug jiidaya isagii bay lugta jiidayaan dowladdiina isagaa fadhiya hadalkii uu shalay lahaa hadal cagsigiisa uu maanta leeyahay wixii uu shalay lahaa baa u yaala waxaa kaloo meesha taalla wuxuu yidhi doorashaan qabanaya qof iyo coda waa wanaag laakiin muuse intaa u tagtid tiimka doorashooyinku ma aha 18 adigu aad jeebkaaga kala soo baxay sidoo faarax iyo cali isugu kayaadiya ah ma aha guddiga doorashooyinku waa guddi doorashooyina oo si sharaf leh iyo si lagu wada qanacsan yahay iyo si laysku waafaqsan yahay oo heshiis lagu yahay kusoo baxay ma ujeeda waa lagu kalsoon yahay waxay soo saarayaan natiijo lagu kalsoon yahay waxaasoo kale doorasho la dhahaa waxay raggaasoo kale qabtaan baa doorasho la oran karaa dadkuna ay ku qanci karaan laakiin anaa arbitara noqonaya banoonigana anaa ciyaarayo labada kooxoodba ah ha layga guulaysto ama ha layla ciyaaro arbitaran anaa ka haddii layga badiyo waxaa waxba kama jiraan penalty way xagga ah waxaas ma shaqaynaysa xasanow maalin walba hadalkaagii aad shalay tiri wax alla wixii ficilo aad qaadid ama hadal oo aad tiraahid kaagii shalay oo cagsigiisa aba kuu diyaara oo ay arkiifyada social media ku hayaan tartiib baa lagugu soo gelinay yacni waxaan ku dhihi lahaa doorasho qof iyo coda waa kugu taageeraynaa waana wax wanaagsan laakiin ma aha taa rabtid waa mid loo dhan yahay gobolladoo dhamme ay ku jiraan ma waafaqsani anigu maamul goboleedyadu inay dowladda dhexe ay 24 saac lugta hayaan oo la dagaalamayaan oo ay rifayaan ma waafaqsani axmed madoobe inuu meeshaas ka fadhiyo kursigan war mawaan axmedow lagula lahayn kursiga cid kale oo dadkaan hogaamin kartoon adiga ayn weysa jirin kursiga mawaan loo sinnayn maxay tahay waa iskaga celceshanayaa yaa goormaad ka tegaysaa ma mulkiba boqortooye miya ma ka dhimanaysaa waxaasi soomaali ma anfacdo danna uma aha soomaali waxaa anfaca dad dhalinyaro ah oo aqoon-yahana oo ma garanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala ka baqaya oo horumar iyo dalka inay meel gaarsiiyaan raba inay dalka xukumaan saasaa dantu ku jirtaa marka anigu goonigosid bogaadin mayo waxaan bogaadinayaa guddiga shaqada qabtay waa bogaadinaya hawsha la qabtay iyo shacabka codeeyana waa bogaadinaya waxaan kaloo bogaadinayaa madaxweynaha cusub ciro waxaana u rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu xilka uu qaban doono muddo dhow uu qaban doono uu ku guulaysto inuu noqdo mideeye nin ummadda soomaaliyeed isku soo celiya kana shaqeeya midnimadii luntay oo godka ku dhacday mid ka soo saari kara inuu noqdo legacy iyo taariikhna ka taga taariikhda fog oo soo socotana loo akhriyo jiilasha soo socda oo dhalan doona loo akhriyo ninkaasaa dalkii iyo dadkii badbaadiyey oo midnimadii dib u soo celiyey waxaan aaminsanahay muuse inuu eeday MOU-gii uu u saxiixay Ethiopia waxaan aaminsanahay dadka reer Somaliland inay yihiin dad nasaba oo Soomaali ah oo Soomaalinimo raba oo aan laftinigaa iyo ma garanaysaa oromatihiin aan lagu khaldi karin dhulkoodana aan la bixin karin aan ogolayn inay dhulkooda bixiyaan daliilkii wakaa muuse wuxuu ka sabri lahay maroodo jeexsee cod aad u tiro badan aan uga guulaysan waayo waxaa la marayaa 68% iyo wax la mida iyo 30 iyo dhowr wax isku dhow maaha kama soo noqon karo si kastoo uu tirada ugu celceliyo waxbaa isku dhajinay xilka wareeji waxaan kugu bogaadinayaa aakhirkii 2 sano booba markaad qaadatay kadib markaad si kasta isugu dayday inaad bahasha ka baaqatid inaad aakhirkii ogolaatay waxaan kugula talinayaa xilka wareeji si nabadan ku wareeji qodobka intaas ka oranaya dad baa waxay sameeyeen fiidiyoyaal aan leeyahay oo 2 sano 3 sano ka hor bay intay soo qaadaan bay waxay ku qoraan degdeg markaasay waxay ka dhigaan wax hadda dhacay ummaddiiba ay soo wacayso waxaan ka sheekaynayaa wax waa hore ah markaasaa waxaa la isleeyahay war beentaan tirada badan maxay ahayd waxay raadinayaan views iyo inay xoogaa lacaga ka sameeyaan habeen dhaweyd baan qabtay muddaan u digayey waxaan ku bilaabay shalay iyo doraad maaqaan baan u sheegay dhalinyarada maamusha website-ka facebooka iyo youtube-ka inay kulli
copyright ku qabtaan qaylay bilaabeen caruur baan ku biilashaa please lacag baan ka helaya iga xirin yani maxaad lacag ugu biilanaysaa waxaadan lahayn maxaad been u sheegaysaa xaaraan miyaa ku biilaysaa carruurta maxay noqon doonaan ciyaalkaasi maxay noqon xaaraanta ku koray maxay noqon doonaan soo waxaa hadda aan ka yaabanahay siyaasiga hadda joogo madhargaha ah oo cirkiiyo dhulka qabuuraha u daadanaya soo noqon maya ilmahaagu maxaa ugu biilaysaa xaaraan xaqun cala allah ilaahay subxaana wa tacala waajib iskaga dhigay kullu laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa biha hilib kasta oo xaaraan ku baxa naar baa iskale maxaa xaaraan u cunaysaa u rabtaa xaaraan cunti marka waa idiin sheegay horaan idinku digay wixii hadda ka dambeeya qof alla qofkii soo geliya video aan leeyahay oo qaata oo markaas waa hore ah oo been ka sheega oo saas maaragtay ama cinwaano beena saara ama balaayo ku akriya iyo waar degdeg iyo waxaa qora copyright 3 strike haday kugu dhacaana waa lagaa xirayaa iska daa marka faraha ka qaad khayr badan baa idiin rajeynaya wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu